السلام عليكم كسو دبادة جلنكا سانك اوفيشال ما انتو حرمنا صاحبتينا walaasheena oo qaaliga maanta inaan ka gashano baranki gool waa wacena hadda waa wacay waxa dheer farxiyo dab muhiim ah ka leeyahay oo soo waca waxa ay dulqaada dheer marka hadda wacena marka saaxiibkii xasan way la ogyahay waa ka wala caada oo wala maanta yalla socdo farxiyo ya daxna qoraan laho Halo. Babo. Seetay. Waana waqtigan. Oo ku fiican wallahi. Waa bashaaleysa. Alxamdulillah bash ay barwaaqo. Meesha magaalada. Hadda ma bajaaja ka dagay marka ku soo xaafad hooyo aadano. Miya. Marka arina taagneed. Maanta dhacdaa. Maanta dhacday. ninkii shamuuq ayaana isqabane marka waa arin isku qabane oo wax qof oo maxalla wax loo sheegay oo kale laakiin ima sheegin hadda isku dagaalno waa ka soo tagay ilaa heer gacan ay gaar rabtay marka adi galabiya camalayna 12 camaleed marka arintii saadacdo kooda laakiin waxa horto markii dhacan horto oo dhacan lama dhaa laakiin dibka ugu weyn horto xalka muhiim ah marka maantana qof aan wax ka filaa xitaa aan ma aha waxaas marka ninkii horto waxa isku dhacnay hadal oo aan ku sheeg ma jirto maya waxa isku qabsanay arintaas farxiya aad u sheegtay iyo waxa uu sheegtay iyo waxa dhoocil maata maxaa ka wada maya arintaas jirto adaan sheegtay farxiyaan aan ii sheegtay marka aan farxiyo wada walaashii waay wax iska ma filin waxa la yaabana waxa Soomaaliya marka أنا ما بدور شيء كان بوح بموضوع هذين ده أنا ما أعرف شبينا لا يحكوا عن من الحياة أخرين تاس يشبه وحلا يابنا مع نفتي فرح وحنا عن ذو كل شيء أو شموق وشيء إلى حد لا يابنا واحد هاي ما حسوا طمانين أو أن تفتي من ماشي مع حفيظ مرة أجلسنا نص قلي sheekadii wada uu dhahay uu naga tagay qofkaasna muxtal uu ahaa dad mid ahaa ma aqaan markaas sheekaysaneen arintaas oo sheekaysatana arin oo bahashi kaleeto isaga family waxa haysto problem iyo waxaas ahaayeen wax ka kama wada laga wada hadlay marka hadda aniga waxa rabaa horta dagaal dhacay waxa la isku qabsado ma fiicno haddii aad wax sheegto waxa waaye anigu waa ii sheegi lahayd warta wax aan sheegay ma wax oo xarunta ku saabsan ama wax ka madax banaan wallahi aad soo sheegayo wax oo xitaa wax arin oo ma aha arin oo yar oo sahlan ma soo sheegay marka hadda ninkii waa xitaa gacan isku qaadiribno ugu dambeyn ana ka soo tagay marka hadda aad wax sheegtay iyo hadii aan sheegin marka aad hadda asaga koolka soo gilaa ka jahil bixi ku jiro yaa ka bixin واجرت على إيجابت عليه قوم فهون عافمات وحمد كان ذلك كفر بتعليمين حنوك كوفيد 19 كل دقائق الناوية الو السلام عليكم سيتاي horta aniga galabtu waa isqabanay waxaan rabaa inaad wax walba aad xaliso runta aad sheegto
may waxaa kaa rabaa keli ani ad waa isqabsanay waxaa isku qabsanay warkaasi farxiya ay sheegtay farxiya hadda qadka ku jirtaa marka haddii farxiya ku sheegtay hadda waa kaasa waa kor taagan tahay farxiyo waa maqashaa ninkan waxa la isku qabsaday maanta ani aan sheegay maxay ahaayeen samuuqo jabo ilaahay ka baqaadi waxa la rabaa si daacad ani farxiyo walaalaan ahnay inaa dadka bilaadanka qorta isku geli lama rabo waxa la isku qabsadaa waxa ii sheegtay nigeran yahay maxay ahayd waxa kuu sheegay waxa la isku qabsaday kulay walaal isku qabsaday waxa ii sheegtay la sheegay aan ku weyn ku qabsadaanay warkii yaa kuu sheegay adaa ii sheegay goorma kuu sheegay waa warqabtay waxa horta fiiri shamuuqow in waxaa la rabaa moogtahay si caloolsiyoobe wax laiskugu sheego moogta xilliga aan sheegay iyo waxa aan sheegay waxa ahaay xasuus waa bili-aadan ah waa iloobi karaa sax mise bili-aadan هذا بنادنا تهاي لا مكرت صح ولا لا هذا يشيء waxa ii sheegtay ana ku qabsaday ninkaas waana isdagaalnay gacanay tagtay yaa ka tibilay aan kala tagnay hadana inuu soo waxa ma ahayn ninkaas fiiri oo dagaalaween heshiiyaan waxa aan ku sheegay maxay ahaayeen xasuusi aniga hadda telefoon waxa kama sheegi karaan markii la soo fadhiistay sheegay telefoon ina soo fadhiisana waxna ma kala jirtay hadda wax aan kala halin wax ii sheeg أنا كان علينا أول دجال القرط كان يجي إنه ضغط بيساعد النبي حطنا تلفون وكم شيء كراني وراء كذي وحنا شفنا وش هذا اللي تخصص المحاضرة عليه شغل ما أبا هذا أنا هرت أنا واحد جعل أنا مل عليك أقصر هرت مجعلي محلا إني كان قلبته واسقو ربني wax badan oo ii sheegay wuxuu dhahay ilaa heer qof walba garta ani markii waxa sameeyay dagaal intuu dhici la aniga waa ka soo tagay Soomaa waxa la isku qabsaday maxaa aniga sheegay ani walaashiya taa markaa filneen waxa sina dhees xitaa anna kuma sheegin meesha ka keetana ma aqaan wallahi bilaa farxiyo markii runta laga hadlo fiiri waxa sheega ma wax afka soo qaban kara ma baahba anigu ku quuro xitaa fiiri wax afka soo qaban karin oo labadiina ay sheegayseen afayasha saxeeyay هي وحال يا بن وحاسبه أنا وحنا هذا أنا أديك أنا كوشيك وحاس واي وح أفك حتى وكيق قصدا قف أو إسكراف ولا إسكراف قف ددو حتى وحسب مدها مديكرو إذا جالس تلفزيون ومقلي فيني وح ولا علياله وإسوا علين رحية وحاشة فليدها إن كان عندي قال إيه يكو عاوح لي رحية واشفة waxaas ay yihiin ii sheega aan ilaahay baa ku loo aan horta aan feeri aan waxa ka dhigtay horta maya aan waxa ka dhigtay gabar walaal oo walaashii wallahi bila tala farciyo waa ka jeclaa wallahi walaalkii il jeclaa baada ka jeclaa waayo waa qof afgaaban oo wiliis waxaas oo kale aan ka filay maanta waxa ku aasho wax iiga sheegtay xitaa waxa aan aashay xitaa ma hada sheeg la xitaa wii aan leed mana ka filnin waxaas oo kale sabaweyn هذا أنت بالك يشاء يسوي على تفاعل وحاط مسافة من مسافة واحدة هاي يا وشين هدي أنا وهالله وحواشك شيء جاي بحبها كده بالنسبة خطتك أنت بدل ما أهين وحواشك شيء جاي هذا واحد جرام أنا هاي بلا أنا هاي وحوا قلبك ترى قلبي وقلبك ترى مشي لشيء على إيه شيء هرت معي فاهم فرحي وكسا فرحي قف وحش شيء ما أهين لكن هذا ما حكوك أنت نوحش شيء تعرف كده بسؤال هي وحرت على شيء واحد هاي وأوتا واحد ما أنا ما ناقة أنا أو محلها هنا أوروع الإيقادرت maxaa ku keentay ani ma naaga meesha qofsariisana ogeed ani warban iska soo xirmarka tamaa hadaan dahay kabuween naaga uu reeyay uu wacalay wada meeshaan ku dhaho aan ka rabaa cadeenan rabaa dilado alla idmo waaba hadda uu hortaagay oo ku dhawaabo ida ay sheegtay dhahay على كل حال وراه دم jirto warkaas meel ayadoo ii soo saaray
riwaayada markuu bari xafiiska imaado warcad ma tahay Mareeyoy waxyaa wax sheegta adduunka ilaahay kelmadaas ama dhaamawhidaadi horta waan ku qabsata koo dheh walaasha buuskeeda qabsee wiligaan wax ma sheegin koo dheh barnaamijka hadda kaamirada hor fadhiya baranka koola kugu sameeyey waaba duu baranka koola ku jirtaa oo live ah horta waxaa waaye waa iga dhibcabasateen koo dhaha waa ii dhimaneeda ku dha weligee iyo allahe lamadhiina qolaada waraa sheegta koo dheh laakiin xasan iyo maxaa ahaa ka weyne waa iga dhibcabasateen dhib malaan ama saan kaga caarsan lahay darteeda inaan galo waa haddana hal ilow waxaa waaye wallaahi williga horta aan walaashaa taa ku jeclaa waxaas oo kale ma jecla laakiin maanta ay kaa qabatay waxaa dhe qofka ugu horeeyey oo barankii aa ku samayso waxaana dhigi laheedeen le haddaa saf ku ekaysan laheedeen oo sabuq soo dhaha uu taagnaan lahaa warkaas maxay aheedo ma sheegaayo inaad soo fadhiisano mooye adigana aad taagnaan laheed maxaa waxaan afka soo qaban karin waa caawa dhan indhahay warda masku geyn laheedaan kudha biri xafiiska markaa imaado anoo dhacsaa lahay arki laheedeen kudha oo meelaha hurdaayo ma adi maxaa ka naxda horta markaa ku dhahay waxaan wax afka soo qabanin ma naxda horta midaan kuu sheegaayo wax afka aan soo qabanin anigaba ku hordhahay qofka ugu sheegaa waxaan afka soo qabanin ay raalloqo kun iyo kow jeer waa kaa raaligelinaynaa walaasheenaa tahay waan ku jecel lahay kale hal iyo labo caawa waa lagaa gashada baranjigan qaybtiisa koobaad ee daafuritaanka qofka ugu horeeya noqoto qofka ugu horeeyo maxaad leedahay daawadayaasha hal iyo labo والله داوداش waxaan leeyahay shaqo dheeleedkii oo aan weligii xitaa soo sameeynin ka weynay maxaa ahaa shamuuq ila imaadeen baana dad iga raayay laakiin tii ka aarsanahay weligii allah ma boorto dad isku dirdiray ilaahay adduunka ilaahay farxiya tirhay araga farxiya isoo sheegtay uga carri jir ilaahay oo caawa iga dhibcatay marka waa inuu ku qaadanaa waa maasanta engineer sanka daawadayaal soo dhawaada qaybtii koobaad ee barangigayna oon markii ugu horeysay aan ku sameynay gabar qaali nagu ah madaxdaynii hore ah farxiyo maxamuud yuusuf abaabul isweydaarsi dheer kadib aan go-aansanay inaan barangigan aan ku daahfurno markii ugu horeysay farxiyo horta aad bay u naxday oo waxaa qabsatay mucjiso ay la yaabta marka saaxiibadii ugu dhawaayay oo isdhahaysa waa kuwii kuugu wanaagsanay oo mid ka mid oo engineer sanka inta soo waca oo dhaho waxbaad iga sheegtay ninkii odayga shamuuq ahayna waa isdagaalna caawe dhiig baa daada tagay walaalay waxaas ma kaa filanay marka uu dhahay aad bay u jaxjaxawday xaaladoodu si kale naqatay dood dheer kadib markii qadka la soo geliyay waxaan ku adkaystay iyadoo been abuurta oo ogsoonahay inay hadalkaas tiri waxa ay tirina ayna iska warqabeenba iyada dhanba gebiyahaanba marka aan hadda xilligaana aan ka sheegi karin halkan laakiin fadhi iyo aragti muuqaal ay u baahan tahay wax kool aan ka hadli karin ayna jirin xaalku ku sii cakirmo farxiyo muddo daqiiqada oo xaalku cub ku sii noqdo jaha wareer iyo rafaad dheer kadib baranjigii qaybtiisa koobaad engineer sanka iyo wada shamuuqo idan leh waan soo gabagabaynay kulan dambe oo xiiso leh iyo isu soo noqod wanaagsan saaxiibayaal